وغياث الفقراء جزوكم واسمع وبادر munaasabadani lagu xusayay siyaarada Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda culamaa u diin dariiqada suufiyada arday haween iyo marti sharaf kale dadka munaasabada xuska ka soo qayb galay ayaa ka badnaa 3,000 oo qofood ugu horeyntii waxa munaasabada ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Xuseen hal yiraahda oo la ictibaariyaa awalan dariiqatul qaadiriya inay ka soo gashay xagga saaxil inay ka soo gashay baa la sheegaa ama ay iraado dhanka Itoobiya iyo xaggeeda inay ka soo bilaabatay sida ay islaamkaba awalba ugu soo bilowday maxaa yeelay waxaa la ictibaariyaa al-qutb ar-rabbani al-sharif Abu Bakr Abdullah al-Aydarusi al-mutawaffa sheekh li yiraahdo Sharif al-Aydarus la oofsaday 1503 waa awal mu'assasa dariiqati al-qadiriyya fi Soomaal taariikhda hadda dib u raacdaan waad helaysaan thumma waxaa la sheegay الشيخ الشهير بن حسين نور oo loo yaqaano Sheikh Hussein Bali ee asagana arad Ciraaq ka yimid ayaa markii hore dariiqada asal ahaan meeshaasi ka soo galiyeen meeshu hadda degan yahay keenay Baghdad ka yimid Sheikh Cabdulqaadir Sheikh Maxamed Soomo oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dariiqada suufiyada looga baahan yahay in hoggaanka dalka ay qabtaan waxaan rabaa caadada u laabanaya dalku wuxuu qaribay oo baaba'ay hadii laga tagay مناقبك هدي لقيت جاي سلقي